Assalaamu calaykum saaxiibayaal soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta iyo suuqa kala iibsiga. Wararkeena inta ugu badan caawa waxaan xoog ku saari doonaa arrimaha suuqa kala iibsiga. Haddii aan ku hormaro qodobka ugu horeeya, kooxda Man United ayaa dhamaystirtay saxiixa xiddiga weerarka ugu ciyaara kooxda Wolves, Matheus Cunha, kaas oo ay ka dhigtay saxiixii ugu horeeyay ee suuqa kala iibsiga xagaagan. Kooxda Man United ayaa Matheus Cunha kala heshiisay heshiiska shakhsiga ah toddobaadkii hore si uu ugu biiro kooxda. Man United ayaa sidoo kale ogolaatay lacag dhan 62 milyan oo euro si ay u hesho xiddiga kadib wadahadalo ay la yeelatay Wolves. Dhanka kalena, Liverpool oo dalab rasmi ah ka gudbisay saxiixa Florian Wirtz. Kooxda Liverpool ayaa dalab rasmi ah ka gudbisay saxiixa xiddiga qadka dhexe ee weerarka ugu ciyaara kooxda Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, sida ay sheegayaan wararku. Fabrizio Romano ayaa sheegay in ay Liverpool dalab 100 milyan wax ka badan ka gudbisay saxiixa xiddiga reer Germany. Romano ayaa intaas ku daraya in wadahadallada labada kooxood si toos ah u socdaan, isla markaana la filayo in maanta heshiis laga gaaro saxiixiisa. Mbappena waxa uu ku guuleystay kabta dahabka ee goollalinta Yurub. Ku guuleystaha kabta dahabka Yurub ee xilli ciyaareedkan ayaa la xaqiijiyay Axadii. Tani waxay timid kadib markii la soo gabagabeeyay kulamadii ugu dambeeyay ee horyaalka Premier League. Kadib 2 gool oo uu dhaliyay Kylian Mbappe guushii Real Madrid ay ka gaartay Real Sociedad Sabtidii. Xiddiga Liverpool ee Mohamed Salah ayaa ahaa ciyaaryahanka kaliya ee soo qaban karay xiddiga reer France. Tani waxay ka dhigan tahay in Kylian Mbappe uu si rasmi ah ugu guuleystay abaalmarinta kabta dahabka ah ee Yurub 2024-2025. Manchester United-na waxay wadahadalo la furtay saxiixeedii labaad. Manchester United ayaa wadahadalo la yeelatay weeraryahanka Brentford Bryan Mbeumo, sida laga soo xigtay Talksport. Xiddiga garabka ugu ciyaara kooxda Shinnida ayaa ku riyaaqay xil ciyaareedkiisii ugu wax soo saarka badnaa ee xirfadiisa, isagoo ka caawiyay kooxda ka dhisan galbeedka London inay kaalinta 10aad ka gasho miiska kala sareynta. Dhinaca kalena, haddii aan isla eegno saxiixyada ugu waaweyn ee ka dhici kara Premier League suuqa xagaagan, suuqa kala iibsiga ee ciyaartoyda ayaa ku dhow inuu furmo, waxaana la filayaa inay dhacaan saxiixyo waaweyn. Kooxaha waaweyn ayaa durbo bilaabaya shaqada saxiixyada ay doonayaan inay dhammaystiraan. Alexander Isak. Arsenal waxa ay indhahooda ku hayeen Alexander Isak goor hore, laakiin waxay bilaabeen inay ka baqaan inuu u badan yahay inaan la heli karin. Haddii uu ka tagayo Newcastle United, waxay noqon doontaa mid ka mid ah dhaqdhaqaaqyada ugu xiisaha badan xagaaga. Ilwareedyo ayaa si maldahan u sheegay in Liverpool ay aaminsan tahay in ay heli karaan saxiixa xiddigan Benjamin Sesko oo ku qiimeysan 84 milyan. Arsenal ayaa ka fiirsanaysay inay la soo saxiixato Benjamin Sesko ama Victor Gyökeres suuqa xagaaga si ay ugu xaliyaan dhibaatada weerarka. Ugu dambeyntiina Xabi Alonso oo ballanqaad weyn u sameeyay taageerayaasha Real Madrid kadib markii la magacaabay. Xabi Alonso ayaa muujiyay farxadiisa kadib markii si rasmi ah loogu magacaabay tababaraha cusub ee Real Madrid ilaa June 2028, isagoo bedelaya Carlo Ancelotti oo la wareegay shaqada xulka qaranka Brazil. Alonso oo ka hadlayay munaasabadda soo bandhigistiisa maanta oo Isniin ah ayaa yidhi, "Maanta waa maalin gaar ah, waxay qalbigaygu ku qori doontaa raad waara. Waxaan dareemayaa inaan gurigaygii ku soo laabtay. Xiriirka aan la lahaa Real Madrid weligiis ma goyn, ilaa markii aan saacad iyo bar ka hor ka soo tagay Valdebebas. Dareenkii hore ayaa isoo galay. Waad mahadsan tahay mudane madaxweyne. Kalsoonida aad igu qabtay inaan hogaamiyo marxalad cusub ayaa wax badan iiga dhigan. Tan iyo markii la ishaaciyay, waxaan dareemayaa in Real Madrid ay u diyaarsan tahay bilow xilli ciyaareed cusub oo guulo badan leh." Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta oo aan idiin soo koobayay. Haddii aad ilaa dhammaadka muuqaalkan la soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.